الله ha u naxariistay waxa lagu guuleystay in la soo saaro meydka wiil dhalinyaro oo shalay gelinkii dambe uu liqay dhaambiyood weyn oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Balli-Gubadle ee xarunta gobolka Hawd kaasi oo soo saaristiisu qaadatay saacado badan marxuumkan ayaa ka soo jeeday qoomiyadda Oromada ee dalka Itoobiya maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Hawd ayaa ilaa shalay gelinkii dambe dadaal xoogan ugu jiray sidii meydka wiilkaasi dhalinyarada ah looga soo saari lahaa biyaha dhaambiyoodkaasi sidoo kale waxa magaalada Balli-Gubadle ee xarunta gobolka Hawd soo gaadhay gurmadyo kala duwan oo ay kamid ahaayeen ciidanka dabdamiska qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale quusayaal iyo saraakiil ka socday ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Allah ha u naxariistee meydka marxuumkaasi ayaa la soo gaarsiiyay cisbitaalka guud ee magaalada Balli-Gubadle waxaana baraxadda hore cisbitaalka Balli-Gubadle warbaahinta qaranka kula hadlay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Hawd Axmed Cali Direyse xildhibaan Cabdi Cawil maayirka degmada Balli-Gubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine iyo barasaabka gobolka Hawd Eelaye Xuseen Aadan iyo xubno kale inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa halkan yaala cisbitaalka guud ee degmada Balli-Gubadle marxuum meydkii laga soo saaray ku dhacay dhaamka 23kii bishan kuna jiray hal habeen Allah ha u naxariisto imika laga soo saaray waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ciidanka dabdamiska oo gurmad ka soo sameeyay Hargeysa joogay ilaa xalayto halkan barasaabka gobolka maayirka gobolka madaxda gobolka oo dhan oo heegan ugu jiray sidii loo heli lahaa meydka hadda lagu guuleystay in la soo saaro imika wuxuu yaala cisbitaalka waan la aastoona waxa kale oo isla taariikhda dhacay degmada Baargo inan gashaantiya oo 16 jira ayaa iyaduna ceel ku dhacday ceelka ay ku dhacday inantaasi wuxuu ahaa ceel isaguna sida dhaamko kala u samaysan maadaamay nimcadii da'ayso oo ay ceelashii iyo baraagihiiba buuxaan waxaan dadweynaha u sheegaynaa in ay ka taxadiraan iskana ilaaliyaan goobaha biyaha ay ku jiraan oo dhan aan la gelin laguna degdegin gelitaankooda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah ha u naxariistay waxa imika laga soo saaray balliga Balli-Gubadle marxuumkii shalay ku dhacay oo ku jiray muddo 24 saacadooda sida awgeed waxaan halkan taxsiin uga dirayaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumkaasi meel kasta ay joogaanba inta kadib waxaan halkan uga mahad celinayaa ciidanka dabdamiska oo ka soo gurmaday caasimadda Hargeysa shalay ilaa xalayna heeganaha waxaan iyagana halkan uga mahad celinayaa inamada deegaanka oo iyaguna heegan oo ahaa kuna guuleystay inay ka soo saaraan ceelka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marxuumka ku dhintay balaga Ilaahay u naxariisto ka ciidan dabdamisaana waxaan hawlgalka ku galnay 24 saacadood ayaan dul joognay alxamdulillah rabbil caalamiin ku guuleysnay in laga soo saaro marxuumkaas dhaamkaas waxaan ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan degmada Balli-Gubadle inay ka taxadiraan dhaamamka iyo meelaha biyuhu fadhiyaan oo ay khatartoodu aad u badan tahay imikana aad bay u soo badanayaan maamulka gobolka iyo maamulka degmadaba iyagana aad baan u mahadnaqanaa sida fiican inuu la shaqeeyeen inaan hawlgalka ku guuleysano inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan marka hore waxaan taxsiin uga diranaa labadii qoys labada marxuumadda iyo marxuumku ay kaga geeriyoodeen labada dhaam ee ku kala yaala magaalada Baargo iyo magaalada Balli-Gubadle marxuumadda iyada shalay markiiba waa laga soo saaray oo ceelyaraha ay ku dhacday iyada markiiba waa la helay laakiin marxuumkan wuxuu ku jiray 24 saacadood gudahood waxaan taxsiin u dirayaa dhammaan qoyskii qaraabadii eheladii ay ka baxeen waxaan leenahay samir iyo iimaan dhamaanteen Ilaahay ha naga siiyo iyagana jannatul firdaws Ilaahay ha ugu deeqo waxaan halkan uga mahadnaqayaa ciidanka damdamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo markasta heegan u ah meel kasta iyo goob kasta ay wax ka dhacaan inay u gurmadaan waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa ciidanka maariniska oo dhexda ku soo jira iyaguna qalabkoodii waxoodii sita waxaan kaloo uga mahadnaqayaa dhammaan dhalinyarta ku dhaqan degmada Balli-Gubadle oo ilaa shalay ilaa saaka ku jiray dhaamka oo baadi goobayay marxuumka iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leenahay dhammaanteen Ilaahay samir iyo iimaan saadiq ah naga siiyo ciidanka damdamiska waxaan leenahay baahidiinii iyo waxqabadkiinii waa la arkay waxaan u baahanahay
sida ugu dhaqsiya badan insha Allah bismillaah kariim inay degmaduna u hesho ciidan damdamis si maadaama oo sanad walba dhowr iyo 20 qof ay ku dhacaan ceelasha iyo dhaamamka ay ku dhacaan oo tahay goobtan aynu joognaa goob ay biyuhu aanay hayn qasabadayo waxa aanay lahayn laakiin goobaha ay yihiin dhaamamiyo ceelal ay yihiin waxaan u baahanahay ciidanka gurmadka ah markasta Hargeysana looga soo gurmeen maayo waxaan u baahanahay inaan dhaqso insha Allah u helno wixii anaga degmo ahaan nagu xidhanna diyaar baanu nahay insha Allah bismillaah kariim qaybteedana ka qaadano awalan ilaahay baa mahad leh mar saddexaad awalan iyo aakhiran baa ilaahay baa mahad leh mar labaad waxaan mahad celinayaa tiimka dadamiska ee 24 saac u dambeeyay nagula sugnaa goobta ee hawlgalka ku jiray iyo dhammaan dhalinyarada xildhibaanada maamulka heer gobol iyo heer degmo oo aanu kala hadhin 24 saac u dambeysay sidii loo heli lahaa meydka aad iyo aad baan uga mahad celinay cid kastoo ka qayb qaadatay waxa kale oo mahad celinaya ciidanka maariniska isaguna hawada ku soo jira waxa kale oo halka ugu mahad celinaya ciidanka maariniska oo laga soo diray iyaguna gobolka Salal oo iyagana dhexda ku soo jiray oo hadda fariinta siinay in meydkii la helay dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay xukuumadda iyo deegaanka iyo dadweynahaba mahad baan halkan uga celinayaa inta bacdigeed kulay nimcad walba nuqsaan leh nimcada roobabka ay daay nuqsaanteedii waan arkaynaa dadka deegaanka waxaan faraynaa iyo dhammaan bulshada gobolkaba inay ka foojignaadaan xarumaha biyuhu fadhiyaan iyo wax kastoo khatarteeda leh waxa kale oo halkan tacsida ku daraynaa Allah u naxariisto marxuumka iyo marxuumadii shalay ku geeriyootay degmada Baargo ee isla gobolka Hawd oo iyaguna labaduba ay biyaha ku dhinteen ama baraag iyo ballaygan mar labaad waxaan u mahad celinayaa cid kastoo hawsha ka qayb qaadatay geesta kale allaha u naxariistee gabadh dhalinyaro ah ayaa iyaduna ku geeriyootay barkad biyeysan oo ku taala deegaanka Baargo ee degmada Sayla ee gobolka Hawd oo iyada markiiba lagu guuleystay in meydkeeda la soo saaro maxamed Shiciir Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Balli Gubadle